qaranimadu ku kordhintay oo dalka korkooda uu ku burburay oo ku dhiigbaxay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. asxaabta qiimaha iyo qaayahana meel walba dunida ka joogtaan waxaa idin leeyahay Baafayare Media ha lagu soo yaaco sabskaraad download dhaw share dhaxay qodbacdin iska fadhinaysaa meesha waa nin taalantina waa nin la yaqaan oo dadka hore waa waliba rawaayadii hore u sameyn jiray waa actor jiro oo caan oo koomikista oo wax walba heesaana ku wax walba wala soo shubaya kana ku soo shubo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد. وحامل هالعلنا يا دمان مدحنا حزبينا مدحنا ضليرنا مدحنا ورونا هوانكا بعد صحافتنا خبرنا وانكم عيدنك بوليس عيدنك اسلوبة الصوماليات كوحدة بانديدة عيدنك اسلوبة الصوماليات خبرنا بنجرياش النهضة عيوك هوانك قرنك الصوماليات لما ضليردي كسوقيت الشيء هوانكي حفلة أنا قلت وقالي تاجريد قفي عد ورشو قفي عدا هذا اللي بكون هذا علينا ما أنت ومعنين ومعنين تاريخها ومعنين أنتاجناي ليش اللي هذا بيرتا بجحتور أنا تعلم بجحتور وكنت نعمل لو أنت حرية الصومالية بالتمامية اللي بدي الجسدية جيت يبدو نفسي معي كوميديا الصوماليات هل كان كده راعي قرنينا بالله صغري وحكدم بيا دولمينو وحكدم بيا بربر كي وحكدم بيا دولمينو كله يا الصومالية يدبوا صوكبته هذانا يقولون كصوماليات haweenkii dhulku ku dhumay oo qaranimadu ku kordhintay oo dalka korkooda uu ku burburay oo ku dhiigbaxay oo ku dhintay oo carruurtoodu baahida u laatay oo iyaga oo daranbaada dalka ka qaxay ama ku barakacsan haweenkii Soomaaliyeed ee u dabaracday dhibaatadii dheereed ee muddadii 30 sano ay ummadda Soomaaliyeed ku jirtay haweenkii dawladda u noqday ummadda Soomaaliyeed oo sababta bixiyay dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaan rabnaa inaan ku dagaalano xaqa waxaan rabnaa inaan taageerno doorasho qof iyo cod ah waxaan u soo istaagnay maanta fagaaraha caanka ah ee taallada dhagaxtuur inaan muujino dareenkeenna ma qaadi karno doorasho kale oo dadban uma hayno waqti in lagu lumiyo in shacbiga Soomaaliyeed la caburiyo loo diido codkooda iyo xuquuqda bini'aadanimo oo xaqa u leeyihiin inay ku doortaan qofka ay rabaan oo mudan oo matali kara waxaa xaqiiqo ah gabdhaha